وأنا كوهم بلينا أنت حلبانada baarlamaanka labaad ku jirtana sharaf ay u noqon doontaa taariikhdu ay xusu doonto insha Allah sidaas oo kale waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo oo aad aan baarlamaanka ugu agdhow saaxiibaan la ahay baarlamaanka labaad ee galmudug waa baarlamaanka kaliya ah ee shuruucda ugu badan ansixiyay oo meel mariyay intii hadda ay jirteen oo labada sano ku dhow marka sababta baarlamaanku u jirana waxa waaye dalku shuruuc inuu yeesho shuruucdana aad meel marisaan waaye marka shaqadaas aad ka soo baxdeen waxay cadeynaysaa inaad baarlamaanka idinka dambeeya aad u tihiin ku dayasho wanaagsan inaad u tihiin runtii aad aan ugu mahadsantihiin intaas kadib reer Gurceel hambali aan leeyahay waa ku faraxsanahay in maanta degmada Gurceel oo ay sadood ku jirin degmanimadeeda oo sadood ku jirin imkaaniyaadka iyo waxa yaala iyo sida ay tahay populationkeedu laakiin la ayd in loo istaago oo la marsiyo habraaca sharciga in la marsiyo la ayd runtii maantay waxaan leeyahay hambaliyo wasaaradda arrimaha gudaha oo saaxiibka Axmed Leero ugu horeeyana waa uga mahad celinaa degmooyinka kale ee populationka iyo shuruudaha soo buuxiyana waxaan rabaa ayagana saas oo kale in looga shaqeeyo laakiin aysan naga noqonin uun maaragtay nin kasta inuu yiraahdo xaafadeeda hal ay ansixiye aan shuruuc raacno ayaan runtii aan rajeynaa aad u mahadsantihiin hambaliyo mar kale martiqaadka oo gudoomiyaha sideen sameeyana hadee gabdha kaliya kuma darin wuxuu dhahay xitaa xildhibaanada gabdhaha oo iskaabulada ayagana raga la siinaa u dhahay marka ayadana xisaabta lagu darsado aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh